muna kole waxaan u malaynayaa waa markii kugu horreysay lascaanood timi kole intaadan lascaanood imaan waxyaabo badan baa maskaxdaada kusoo dhacayay marka haddaan intaan kaga gudbo sawir noocee ah ayaad ka aaminsan tahay lascaanood ama intii aad joogtay aada u maasantahay intaas meelaan ku sheegaa raadinaya waxaan islahaa war magaalada idaacad loo kala ma leedahay anoo intaas sheegin mama bixi kara inaan qarxaan ka cabsanayo aada u maasantahay waa la heshay mahadsanid lascaanood markii aa maqashid magaaladii daraawiishta magaaladii dagaalka magaaladii gobonnimada magaaladii xabad iyo dagaal iyo indha fargelis iyo cabsiyaa kaaga muuqanaysa laakiin waxaa xaqiiqo ii noqotay maalintaan imid ilaa iyo hadda asxaabtayda iyo saaxiibadayda xataa gabar walaashay dhashay oo aan ogeyn inay ahayd reer lascaanood inay dhahayaan muna lascaanood kusoo dhawaaw hay adi reer lascaanood ma ahayd waxay igu noqotay wax kale saaxiibaday inta badan iyo Soomaaliya iyo wadamada oo dariskeena Ethiopia Kenya inta badan gabdhaha iyo wiilashaba ama ragga iyo dumarka inta ay wax gasha oo adag oo firfircoon oo aqoonta leh oo kaalimaha weyn ka gaaray oo magaca Soomaalinimada guulo badan ku soo hooyay asalkooda waxay ka imaadeen magaaladan haddaan ogaanaya inta badan shalay waxaan sheekaysanay wiil waxaan ku dhahay garoonkan way loogu magac daray Cabdi Cali Cabdi ninkaas reer Hargeysa waaye saa camal markaasuu dhahay mayma marka haddaan maqlo lascaanood waxaa iga soo dhacaya haliyeeyo Soomaaliya ama Afrika usoo hooyay magac iyo aqoon iyo waxtar aad u weyn teeda kale haddaan usoo laabto maalmihii koobnaa aan joogay lascaanood waxaan ahayn marti waxaana la dejiyay hotel maalin kasta waxaana loo keenaa gaari waxaana la geeyaa meel cunto oo laga cuno waxaana la keenaa halkan marka waxaan dhahnay waa dhuumanaynaa si magaalada aan u aragno maalin kasta baabuur nala saara waa soo noqonaynaa asxaabay kaalay aan goyno haddana waxaan ku faraxsanahay tiimkayga aniga keligayaa gabar ka ah marka tooraan u ahay camal waxaan kaalay waa goynaynaa waa baxnay waa soo soconay waxaan dhahnay xoogaa waa lugaynaynaa markaan soconay wax yar war yaa kaalay soo raax gaari war waa martadiiye soo baxa maya aboo raali ahaa inaan soconaa rabnaa war waa banaadiriye haa inaan soconaa rabnaa wax yar markaan soconay haddana waxay dhahan war kaalay soo raac ceeb waaye saa lugaynaysiin waa martidii 3 gaari aan noo istaagtay markii dambe keeni oo na qaadi jiray aan naga daba yimid way u soo baxdeen na keena waa iska soo raacnay waa soo baxnay haddana maalintii kale subaxii dhaqso inta soo kacnaa waxaan dhahay war yaa kaalay na keena maqaayadaha oo shacbiga ah oo banaanka oo sandaqadaha yar aan shaah ka soo cabaynaa si aan magaalada aan u ogaano waa soo baxnay meel banaan oo maamo shaah oo ku gadayso shaaha oo tarmuuska iyo bakeeriga bis ah oo aan ahayn maqaayad aan tagnay shaahiya aan ka dalbanay shaahi markaan cabnay waxay tiri war iska baxa waa martidii waxaan war ceeb waaye macquul maaha maamo ilma haysata waaye meeshaan shaah iyo tarmuusiya yar waaysaan maane war wax aan samayno maxaan samaynaa wallahi la siinaynin ma soon baa rabtiin inaan soomo war orda iska baxaad wax la dhiibaya male wiil la socdaya intuu isku xishooday oo lacag kaash ahayd oo wuxuu rabay inuu siiyo baby yar oo la joogay wuxuu dhahay hoo marka aan baxno hooyo sii may ceeb uu dhahay 2 jirkii lascaanood waaye يعني هذا وح على الله بنا يا لاسعانود وح بدن أو أنك شيء دون هدي إلهي إدمو وحيسي سي إن وجه كله يضد كله وحان أيدين هاينا شرف يحشمو يمهدنا قاد وين ما أنا أها إن لاسعانود جو أنا جم بقى وحان كإمت إن مدو وحبا مقار كان فاق هذا كله إن منا وهايو وحقرصة إن وشقيسة إن سمفلة هذا وحا أيبو حسمي إن طبعاً كيسانو إن وحا أنقبتو إيه شقوين كأنقبتو إيه وحتى هاي لماذا إذا وحان آد أوغا يعني إن أنكفانا يو جعلها هاي
inaan 10 sano aan ka shaqaynayay deegaanada oo gobolada dhexe oo ah meel adag oo dad adagna ay joogaan inaan wax badan aan ka bedelayo saaxiib la noqdayo ayaga aan ka mid noqday teeda kale waxaan aan dib ugu soo laabanayaa laascaanood sida ay noo soo dhaweysay oo quruxda badan si gooniya aniga muna ah waxay ii tahay macno kale iyo wax kale haddana waxaan ka yaabay magaaladan oo dhan oo wada gabyaaga ah oo rag iyo dumar ay wada gabyaayaan waxaan u malaynaa markaan laabto aan noqdo qof gabayda teeda kale shiiq oo khamiis wato shalay oo wiil yar ah wuu noo gabyaayay haba noo gabye aayaddii iyo xadiiskii oo gabay ahoo na siiyey muxaadaro gabay ah yacni waxaa moodaa inay tahay magaaladii oo aqliga iyo maskaxda iyo aqoonta iyo fikirka iyo hal abuurka iyo curinta waxaan rabay inaan sheego walaalkeeya aa sheegay oo qalbigayga ka hadlay buugta kaliya ma ahayne in lagu daro gabayada ahayd haddii ilaahay idmo sanadka soo socda buugta ha lagu daro buugta iyo gabayada bandhiga buugaagta iyo gabayada maxaa yeelay waxaa ku jira meeshaan kansi iyo diamond iyo maskax weyn oo rabno inaan wax badan aan ka barano wax badanna aan ka qaadano